أنا كوكيل يعني odayaasha iyo ganacsatada Soomaaliyeed hay-adan noo abaabulshay barnaamijkan quruxda badan macallimiintan iskuulka maamulayaasha ragii hore oo ka shaqeey jiray mataqaana hay-adaha qayriga oo nala jooga oo shaqadan ugu horeeyo wanaag waxay laheeday agoon wuxuu lahay culimadii aan ugu horeyso soo sheegtay oo ka soo sheekaysay laakiin anagu waxaan rabnaa wanaageeda waa la sheegay waxaan rabnaa oo haddaan marqaati saaka ka nahay aas-aaska yani ama shaqada hay-adan cusub ee Al-Mustaqim Foundation oo mataqaana u guntatay ama u mataqaan qalab qaadatay inay agoomahaas masaakiinta inay u daryeesho oo ay meesha ka qaado khayr Allah siiyaan leeyahay barnaamij qurux badan aan la ku casuumay oo aad u wanaag badan barnaamijkaasi marka waxa isugu jira samafal oo caruurta agoonta ah oo masaakiinta ah oo maanta aabahood tagay oo hooyo kaliya u garab taagan tahay hooyana la ogyahay maanta tabarteedu iyo taagteedu waxay leegtahay aan ognahay cid ugu gaalmaysay ugu garabsaysay jirin marka waxaan leeyahay inta soo abaabushay hay-adaas iyo wanaag badan oo quruxda badan noo keentay khayr Allah ka siiyo ajri xasanaad Allah ka siiyo inta mataqaana u soo gurmatay ee ugu xoolaheeda gelisay waliba meel dhib badan ka shaqeeyay qabow iyo kuleel iyo inta isugu jira ka shaqeeyso dhib badan ka shaqeeyay ee gelisay agoontaasna waxaan leeyahay kaama dhumin oo meel fiican ay ku galeen marqaati baanu ka nahay maanta waxa meeshaas ay ugu baahan yihiin agoontaasu anaga marqaatiga waxaan leenahay kuwa dhiman oo barnaamijkaanu media markuu galo arki doono adiguna ka qayb qaata wixiinu waxay idin gali doonaan meesha ugu wanaagsan ee wax la gashado waa agoontaas aabahood dhintay oo maanta uusan gacanta ka qabanayn oo uusan madaxa u salaaxayn oo ay rabaan kuwa anagu aan haysano waxay rabaan oo markay naga hor yimaadaan jeebka gacanta loo gali jiray oo markay naga soo macaan mataqaan aaba ma dhihi jiray bye bye laga tagi jiray ma haystaan maanta iyagu intaas marka waxa u aaba ah ninkii maanta garab ka istaaga ee ka bixiya raggaas mataqaan iyagu isxilqaamay oo iskuulkaas khayr Allah caruur fara badan oo ku dhibaataysan gudaha dalka kuwaasi oo aan helin adeegyada aasaasiga u ah nolosha aadanaha haba ugu badnaatee waxbarashada iyo waliba caafimaadka si loo ogaado baahiyaha kala duwan oo ay qabaan caruurta agoonta ah iyo kuwa danta yar ee ku dhaqan gudaha magaalooyinka dalka kadib 1991kii waxaa aas-aasmay hay-ado iyaga doonaya inay u istaagaan sidii wax ugu qaban lahaayeen caruurtaasi hay-adda Al-Mustaqim Foundation waxay ka mid tahay hay-adaha xilligan u istaagay inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka caruurta ku haysata gudaha dalka waxaana degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ku sugan caruur agoon ah oo ay xanaanaynayso hay-adda Al-Mustaqim halka kuwa kalena imika ay ku sugan yihiin xarunta dalka Soomaaliya ee Muqdisho hay-adan ayaa inta badan waxbarasho adeegyo caafimaad iyo waliba sidii noloshooda loo caawin lahaa u samaysay caruurtani agoonta ah iyo kuwa danta yar ee ku dhaqan gudaha dalka Soomaaliya haddaba barnaamijka saakay waxaa marti iigu ah Cabdixakiin Cabaas Xaaji Iimaan oo ah gudoomiyaha guud ee hay-adda Al-Mustaqim Foundation barnaamijka bandhiga ayuu marti ku yahay Cabdixakiin marka ugu horeyso ku soo dhawo barnaamijka bandhiga telefishinka University Al-Mustaqim sooman aad iyo aad ayaa qorshaheennana dibaaleed kaga faahfaahi doonaa waxaa kamid ah iskuul hadda gacanta lagu hayo in la furo oo la qalabeeyo tiradiisii la baxsho maadaama iskuul aana gadan karin hadda dhaqaale aan iskuulku iibsanay iyo dhulka aana haysanin farxiye ceente oo ah gudoomiyaha Universal Academy ayaa bulshada Soomaaliyeed ku boorisay muhiimadda waxbarashada isla markaana agoonta Soomaaliyeed laga dhiso dhanka aqoonta number 1 ina aasaaska aan dhisno oo ilmaha markay yar yihiin iskuul geeyno waliba iskuuladan hadda ay wadaan wiilashan aad u fiican ma sha Allah inaan taakuleeno oo aan wax la qabanno ma aha ayaga kaliya inaan taakuleeno annaga wax isu tareyno wadankeena haddaan ku noqono oo ilmo badan oo wax barta aan helno wadankii waa noo dagaaya haddii laakiin ilmo badan oo waxba aan baran ay joogaan dhibaatadii way noo taaganta marka meesha aan ka gaarno shaqo badan aan noo taalo shaqo yar ma aha shaqadan meesha aan ka gali karno waa inaan ka bilowno Sheekh Dr. Xasan Jaamici oo ah imaamka masjidka Al-Dacwa isla markaana bare sare ka ah jaamacadda Islamic of Minnesota ayaa sharxaya muhiimadda ay leedahay in la kafaalo qaado caruur agoon ah marka waxaan rabnaa hadduu Ilaahay yiraahdo agoontaasi Soomaaliya joogto oo hay-adda Al-Mustaqim Foundation caawa noo soo bandhigtay inaan kafaalo qaadno inteenna inaan wada kafaalo qaadno qof walba meesha fadhiya waxaan rabnaa hal agoon inuu qaato oo aniga ugu horeeyo waana sharxayna qofka insaanka ah hal su'aal uu isweydiiyaa markuu wax sameynayo hal su'aal uu isweydiiyaa oo ah maxaan ka helayaa haddaan hal agoon kafaalo qaado maxaan ka helayaa dhageyso waxaad ka helaysid nabigu wuxuu yiri calayhi salaam
ana wa kaafilul yatiim aniga iyo agoon qofkii kafaala qaada ka haateen labadiisa farta dhexda la yiri ee farta ataxiyaadka aan ku akhrino sababa loo yaqaano tawxiidsata ayuu isku dhajiyay saanan isku nahay hay-adda al-mustaqim foundation oo ka mid ah hay'adaha maxalliga ah ee ka howlgala gudaha dalkeena Soomaaliya ayaa waxa ay maanta deeq lacag gaarsiiyeen iskuulka lagu magacaabo Al-Faatix oo ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir deeqdan lacagta ay hay'addu soo dhiibtay waxayna gaaraysay ilaa iyo 7 milyan oo shilin Soomaali ah waxaana loo qaybiyay 70 arday oo wax ka bartay iskuulka Al-Faatix Primary and Secondary School oo ku yaala maalmaha ciid isla markaana ay ku farxaan maamulka iyo macallimiinta iskuulka Al-Faatix ayaa ugu horeyn ka mahad celiyay deeqda lacageed ee hay'adda al-Mustaqim Foundation ay soo gaarsiisay iskuulka Al-Faatix Foundation al-Mustaqim Foundation ku faraxsanahay ciyaalkan ay maalmaha ciida ay ka fadhiyeen caruurta yaryarka ah ay noo siiyeen al-Mustaqim Foundation jazakumullahu khayr sidoo kale ardayda wax ka bartay iskuulka ayaa waxa ay iyana soo dhaweeyeen deeqdan lacagta ah ee la soo gaarsiiyay waxaana ay sheegeen in muhiim waalidiinta dhalay caruurta oo madasha goobjoog ka ah ayaa sidoo kale mahad celin ballaaran u jeediyay hay'adda al-Mustaqim Foundation iyo sidoo kale howlwadeennada Muqdisho ku sugan hay'adda al-Mustaqim Foundation hay'adda al-Mustaqim Foundation hadda waxay jirtaa 8 bilood laakiin dhinaca kale hadii loo fiirsho waxay jirtaa 8 sano muddo ayaan ka fikirayay hawshan inaan mar uun bilaabo oo aan arko anigoo kiisa kariimka wuxuu ku yiri haddii ay maaragtay nabi maxamedow ay ku weydiiyaan agoonta xaggeeda hadday wax kaa su'aalaan oo ay ku warsadaan xaalkooda iyo sida loola mucaamilayo waxaad ku dhahdaa in maaragtay la wanaajiyo oo wax loo qabto oo islaax loo sameeyaa khayr ah haddii aad wax ku darsatiin ood dheehdiin ood aqoontaya adinku aad isdhex gashiin ood wax isla cuntiin oo maaragtay maalkooda loogu shaqeeyo oo ay macaamilaad aad la gashiin oo saas aad yeeshiin waa walaalihiin waaye agoonta in la faquuqo ma ahan agoonta in la gooyo maahan oo la dheereeyo ilaahay wuxuu yiri fa ikhwaanukum waaye wa in tukhaaliduhum fa ikhwaanukum walaalihin waaye walaaltinimaduna waxa waaye sideedaba saddex waxaan leenahay waa mahadsantihiin hay'adda al-Mustaqim oo hadda la aasaasay oo iskuulka hadda qaybta ugu weyn oo agoon wax loogu qabanayo hadda aan haysano aad bay u mahadsan yihiin ikhwaani horta ay taamta waxyaalaha waaweyn oo quraanka lagu sheegay oo ay taamta wax lagu qabto waxa loo qabta leeyahay quraanka lagu xusay haddana sheekh aadan waad maqlayseen qul islaax laga rabaa inaa islaax samaysto dadka waliba xoolaha leh hadday dhintaan ilmahooda dadka kafiilka ka noqda aydu waxay ku leedahay ninkii qaniya u burburtay dawladda hore dagaal baa ka socday dadka la'anaya oo ragga odayaasha ah wax iska bulaa waxa laga yaabaa percentage-ka boqolkiiba inay laba noqdaan oo ilma lahayn dadki marka la'anayay ilma badan oo agoonahay dhulka ka tagay wax badan baa meesha dhibaha ka jira kuwa agoonta amba ku tacadiyo ama xoolahooda qaato ama islaamaha agoonta inta guursado caruurta kala raacdeeyo aqliga wanaagsan iyo diinta iyo sharafka intuba waa diideen lama ogola waa culimadu waa kuwa sheegeen waa yani uma baana inaan dib u sii raacno waa naloo sheegay allah nagu anfaco dhaqanka wanaagsan wuxuu sheegayaa in loo naxariisto agoonta sida la sheegay madaxa loo salaaxo wax wanaagsan ha la yiraahdo wixii la heli kara ha la siiyo
waxaan intaas la jiro jiiraanka waxaa caalamul islaam laga dareemaa dabaaldegyo iyo fantasiyo kala duwan haddana waxaa jira dad danyar ah oo aanan awoodin inay farxadaasi la qaybsadaan dadka asaagood ahi iyadoo arrintaasi ay jirto ayaa hay-adda almustaqiim foundation waxay maanta deeq lacag gaarsiisay in ka badan 70 arday oo agoon ah kuwaasoo wax ka barta qaar ka mid ah iskuullada ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada dalkayga soomaaliya kasoo qayb galay mas-uuliyiin macallimiin waalidiin marti sharaf iyo arday kala duwan ardayda lacagta la guddoonsiiyey ayaa dhammaantood waxaa wejiyadooda laga dheehanayay farxado kala duwan ugu horreyntii ayaa waxaa goobtay ka hadashay mid ka mid ah waalidiintii kasoo qayb galay waxa ayna sheegtay inay hay-adda almustaqiim foundation ay tahay mid ka damqanaysa dadka danyarta ah ee ku sugan guud ahaan geyga soomaalida alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacd waxaa mahadla alle subxaana watacaala isku kulmiyey makaankan waxaa kaloo qaar la hay-adda almustaqiim oo aad her iyo jeer ag taagan agoomanka dadka taagitaran aad ay ahayd u mahadsantaa mar walba xogogaal ay u tahay agoonta iyo dadka masaakiinta iyo waxyaabaha dhibaataysan u damqoo u dood walaalka u deeqoo u danee walaalka runta lama daboolo xaqa lama dafiri karo xigmad weeye aan duugoobaynin weligeed dareenkooda ka cabiray ardaydii maanta daaqda lacagtii la gaarsiiyey waxayna sheegeen in ay si wanaagsan ugu faraxsan yihiin qaabka wacan ee hay-adda almustaqiim foundation ay u garab taagan tahay maasha Allah fiican barnaamij fiican waan soo dhaweynaya aad iyo aad ay maasanta urmada soo dadaala way bilaabatay inta soo qaaday ee ka keentay qaaradahaas meesha ugu fogo ama Yurub iyo Ameerika keentana waxaan leenahay ajra adinkana waalidiinta iyo agoonta meesha joogto inaan ugu soo duceysaan in Ilaahay nagu garab galo hawshan si aan ugu guuleysano intaas kadib waxaan rabaa inaan u mahad celsho waalidiinta iyo caruurta iyo marti sharafka ka soo qayb gashay oo mataqaanaa ajiibtay martiqaadkeena waqti fiican timiday howlahoodina ka soo tagay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin